wafdi ka socda muwaasada Macalin Nuur xildhibaano ka tirsan xubnaha baarlamaanka Galmudug maamulka degmada Cadaado culimo qaybaha ka doonaya bulshada deegaanka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay xarunta 14 ee muwaasada Macalin Nuur ay ku yeelan doonto deegaanada Galmudug taasoo ka kooban masjid dugsi iyo mawlac muslimiinta ka socotay muwaasada Macalin Nuur ayaa ugu horeyn waxay faahfaahiyeen ujeedka xarunta cusub iyo masjidka ay ka fureen degmada Cadaado ayagoo sheegay in wakiil ugu yihiin Dr. Khaliif Cabdiqaadir Macalin Nuur gudoomiyaha muwaasada Macalin Nuur oo qorshe u ahaa inuu imaado oo u baaqday ka qaybgalka aaska la naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed Macalin Nuur Maxamed Siyaad xarumihiisu kuwan haatan aan maanta taaganahay iyo kuwa la tirin kara midna ma qofkii aan arag sheekadiisu ka dhagsan yahay wali ilaahay karaameeyay buu ahaa ahad wuxuu ahaa ilaahay karaameeyay oo diintiisu naafic tahay oo karaamadiisii la arkay oo yaani ma aragtay culumada diinkii farakuturiska ahaa oo Soomaaliya ka dhex muuqatay ahaa waxaana muuqda sida arintiisa ilaahay u balaariyay iyo shacaarkiisa waxa muuqata sida yaani ma aragtay dalka Soomaaliya uu ugu baahay diinkiisii iyo karaamadiisii iyo saantiisii iyo muuqaalkiisii iyo mudarrisooyinkiisii iyo cilmigii uu ka tagay iyo cilmigii uu ka tagay qof ilaahay karaameeyay oo martaba gaarsiiyay amaan bini aadam waa ka dhayay ilaahay ka raadi noqdaan leenahay muallimka xaruntan marka waa la furay oo maantay dadkii akhyaarta ahaa iyo culimada diinkii iyo maamulkii iyo dadweyne iyo wixii maaragtay ay qiimo lahayd iyo wixii danaynahay waa laga soo qayb galay waxaan leenahay hal la ballaariyo hal la weyneeyo mu'assasadan ayada boorka hore ayaad aragteen waxa waaye farci 14aad ayaa ku qoran marka horaad uga aragteen wax farci 14aad hadda aan sii maraya afartan iyo labadiina bilowday markaan taariikhda dib ugu noqono waxaad garan kartaa inay wax fac weyn yihiin inay wax khayr badan faafiyeen ayaa meeshaas ka muuqata gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootolo oo ku hadlayay afka maamulka Galmudug iyo maamulka degmada Cadaado ayaa soo dhaweeyay xarunta cusub ee muwaasada ay ka furtay gudaha degmada Cadaado isagoo ka codsaday inay ballaariyaan goobaha waxbarashada ayna keenaan jaamacadda Imaam Shaafici iyo howlaha horumarka ay muwaasada ay ka qabato Muqdisho lana soo gaarsiiyo deegaanada Galmudug si gaar ah degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud gudoomiyaha degmada Cadaado waxa sidoo kale uu sheegay in muwaasada ay garab istaagayaan aadna u yaqaanaan caqabadkeeda iyo Sheekh Macalin Nuur Maxamed Siyaad waxa la dhiso wixii ugu khayrka badnaa ugu sharafta badnaa ilaahay agtiisa nasabka looga helay ayaad xoolihiina gashateen intaad nooshihiin haddaad ka dhiman lahaydeen dad kale u tali lahaa ayagana waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo Khaliif Cabdiqaadir Macalin Nuur Siyaad wasiirka dawladii saakay u baaqday meydkii madaxweynihii hore ee dalka soo airportka ku jira markii la keenay ay u suurtageli weyday inuu soo baxo si anigana ila soo xiriiray asaga iyo yarkaas xayfu airportka ku jira ii sheegay inay culayskaas haysto asagana waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tahay wasiir Khaliif waan kaaga mahad celinaynaa dhibaatinka aragtay inaad meesha ku timaado oo sidaan aad ku furto oo saaka ku suurtageli waa adigana aad iyo aad aan kaaga mahad celinaynaa anagu cid kasta oo wax qabanaysa waxa danta guud masaajid kuleejo ha ahaato madrasad diiniya wax kasta waa heliyo la garab taagan dowladda u baahan tahay wala raadinayna gudoominta waxa goobta ka hadlay macalinka loo dhibay xarunta Cadaado ee muwaasada Macalin Nuur Khaliif Macalin Yaasiin oo isna faahfaahiyay muhiimadda xaruntan ay u leedahay degmada Cadaado madrasadu in badan ayaan ka warqabaa waxyaabaha ay qabato lana filaya lana rajaynayo inay meeshaana ka hirgalaan waxa ka mid ah diinta baristeeda cilmi iyo calmiba in la isbaro oo dad la soo saaro diinka yaqaana oo ummadda wax u gala naftoodana wax u gala
gudoomiyaha mu'asasada Macalin Nuur Dr. Khaliif Cabdiqaadir Macalin Nuur ayaa sanadkii hore ka furay degmada Dhuusamare xarunta 13aad ee mu'asasada Macalin Nuur ay ku yeelato deegaanada Galmudug taas oo door lixaad ka qaadatay waxbarashada iyo horumarka degmada Dhuusamare ee caasimadda Galmudug ayadoo lagu xasuusto soo dhaweyntii iyo kafalaqaadka ay u sameysay qaxootiga Siiriyaanka ah ee yimid Dhuusamare sanadkii hore 2020 mu'asasada Macalin Nuur oo loo yaqaan faafitaanka barashada Quraanka Kariimka culumta diinta qudinta iyo kalameynta masaakiinta samafalka oo qaafta horumarinta arrimaha bulshada iyo dib u heshiisiinta ayaa la asaasay sanadkii 1942 waxaana asaasay Allah naxariistay Sheekh Macalin Nuur Maxamed Siyaad oo geeriyooday sanadkii 2009 kadibna waxa sii balaariyay oo furay jaamacado amsihajiyo caafimaad iyo dhismo goob waqaf ah Dr. Khaliif Cabdiqaadir Macalin Nuur gudoomiyaha mu'asasada Macalin Nuur Xasan Axmed Maxamed Kalse TV Cadaado